بسم الله waxaan rabnaa inaan muddo 5 daqiiqo ku yar inaan ku soo koobno barnaamijka usbuucan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله وكفى. waxaan rabnaa usbuucan inaan ka hadalno macnaha wasiilada qaabka dadku ay u xiriiraan. marka waxa la yiraahdo iyadoo aan la hadlin ayaa dadku xiriiraan in ka badan kala bar wada xiriirka waa aamusan yahay. waa contention ayaa la daraasad fara badan inta soo lagu ogaaday. qaabka jirkiisa, qaabka qof u taagan yahay, qaabka gacmihiisa, qaabka maaragtay wajigiisa, indhihiisa, sankiisa, qaabka muunadiisa contention ay ku waramaysaa. beenna ma sheegta taas. 38 waxa ku waramaya qaabka qofka uu u dhahayo wax ma aha waxa uu dhahayo fiirso waa qaabka uu dhahayo waxa qaabka qofka uu dhahayo ayaa shanjibaar ka muhiimsan waxa uu dhahayo. marka dadka inta badan waxa ka xanaajin kara ama ka farxin kara qofku sida uu wax u dhahayo. walidaalika ayaa waxa la yiri marka adig u dulqaado qofkii maaragtay ka xanaajika maaragtay dulqaadku la muran way iyo shaqo fiican in la imaatid runtan inaad sheegtid min meesha ku jirto waay xaqa sida adigu kuula iimaan ala ilaahay wixii aad rabtay inuu ku siin karo adna wixii macna laga rabay inaad keentid. imaam shaafici wuxuu yiri suuratul asr afartaas ku jira hadii kaliya soo degilada ku filan la kafado runtii. marka yani adiga marka yani qofku qaabka muunadiisa oo jirkiisa qaabkiisa wixii isku qaadqaadayo isku maaragtay habaynayo iyo qaabka uu u hadlaayo markii la isku daro waa 92% qofkuna wali hadlo. adiga marka inaad iska ilaalisid waaye hadalka marka labo keenay. walidaalka diintan waxay u tiri war fiican sheeg ama aamus. war fiican sheeg ama iska aamus. muujida marka cilmiga guurka markaan ka hadlay ninka naagu ka helay inuu helo ayadana rabo inay ka heshay ka bacdina isdhaqadaan waa mid sal dhiganaysa qaabka oo maanta waxaan ku daraynaa oo kaliya awalku shaqaansi kaliya ka hadlay guurkuna waa ku jirtaa guurka yani waa midka saldhiga u ah yani jacaylka iyo sinaacibka labadaba muujida sinaacibka labadooduna waxay sal dhiganayaan shaqada. يعني shaqada maxaan ka wadnaa shaqada waxaan ka wadnaa laba loo shaqeeyo midna qofku calooshiisa u shaqeysta iyo caruurtiisa qaraabadiisa iyo dadkii macnaha oo markaas u jecel midna wuxuu u shaqeysta min taas waayo oo waa lama hurto kaas ka lama hurto ama alaab u dhaqaaya ama waxbuu wadaaya wuxuu gaardamaar iska dhaansanaya biyo dhaansanaya ama malaay u dabanaya ama wixii markaas geel u dhaqaay oo wuxuu dan kugu liftay waay midna waxa waaye الاشياء التي يحبها ويتمنى إليها بصفة أو عريضة وجعلها ويحبها حبا شديدا. إنه إله داود وحليل كان يحب العمل برتو تمجري ولو سمعنا برتمو وحكى الشيغان واسكون لقن البحن ملعان وبكوس برتمو برتا وصلق البحن مضوى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس موجود مركا وحليل تمالي وحاسي الشيغان دتك حول دقات هذا الصومالي اسكي جاهلين مركا يعني shaqadaada inaad qabsatid waa labadii shaqaba. anigu marka saan ku dhiirigelinayna dadka waxa tan horana qabsada tan dambana si fiican u qabsada oo waxaad ku dadaashin ina ayadana dad aad qabsatiin because jacaylka ay jeceshahay yuaddi inaad ku calaalisid wa tumaris wa numaris mumarasa wa erayada af carabeedka ugu quruxda badan uu kamid yahay wixii waa jecesha waad ku calaalinaysaa waa ku fiicnaanaysaa marka shaqa fiican qabanaysaa shaqadii marka waxaad raadin suuqaad u raadinaysaa waxay dadka rabaan aad ku qabanaysaa taas. dadkii marka waxay rabaan hadaad qabatid waa kugu soo ordayaan waxay ku leeyihiin lacagtan qaado waxaaga nasiib ku leeyihiin marka halkaas aad uga baxaysaa inaad u shaqaysid ajil kurhi ضرورياتك inay kugu khalifaan dad badan waxa jira ka baxay arintaas adna waad ka bixi kartaa marka فنحن نحب أن نؤدي الإنسان المسلم وغير المسلم بصفة عامة إلا وحال يرى وخالق الناس بخلق حسن إنسانية أولا معركتي رحمة للعالمين وإسلام يعني نقول رجلينا labadaba in siday tahay uga soo baxan taas marka kalsooniye siinaysa taas oo kilifaysa qofka jirkiisa soo aamusan inuu runta ka hadlo wixii jira meesha uu sheego codkiisa laga dareemo cod maaragtay wanaagsan mujida ya waxa yiri maaragtay wajadilhum billati hi ahsan tan ugu fiican kala dooda leeyahay mujid wajadilhum billati ahfa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid mujid jacayl umbad abuurisa mujid wanaag ay soo kordhinaysa khaliifad waxa uu tahay ilaahi adduunka u tahay فايز جارنت marka taas halkaas ka duulaysa insaaniyada oo dhan waxa la yiraahdaa inaad ogaataa nafsul waahid
خلقكم من نفس الواحد من كاس كدي ازواجا مدبيا اللي ذكر iyo maaragtay rag iyo dumar waxaas laakiin hal naf mujid marka midnaha dhihin waa soo dhaweysan Soomaalida dhexdeeda midnaha burin oo nacayb ibalaayaha la aadin waana tan kalifaysa siyaasadda dhibaato Soomaalida naga jirto annagana waa iska dhaafnay annagana waa marar qaar ku sameyn jirnay waa iska dhaaf نرى أن الشعب الصومالي كله بصفة عامة خلق من نفس واحد بل الإنسانية كلها والبشرية كلها بصفة عامة نفس واحدة فنحن نتعامل إليها كهذا موجود صوفيا حينها وحدة الوجود والله ماركتي وجرء ولن وحل إلهي قدران وحيد هذا من حبل الوريد ما من ثالثة إله ورابعهم ولا خمسة ماركتي هذا واحد شنطة تغيران وصلنا نقصي دمعتين ماركا سدع صور جدا بعض اللانجويج كجيركاga qaba xusna waan ku shaqada ma qabsto mid afraad rabnayna sheegno waxa maaragtay almawcid in insaaniyadu ay horumar gaarto inay balan jirtaan walmufuna bi'ahdihim idha ahadu markii balan waxa la yiraahdo galan way ka soo baxaan dadka muslimiintu waxay walba munaafiq kaliya ninka balan intuu kala ka soo baxeen African promises is always broken African kaliya balan galan ka soo baxaan reer Yurub taqadumka ay ku dhaceen waa balanta hadii la dhigo laga soo baxay iyo Mareykanka iyo dalalka kala farabadan marka waxa loo baahan yahay waxa ikhwata cizaab balan hadaa dhigtid ka soo bax ko marka waa ina balan dhigta maal hebel hawshaas oo san qabnay waa in qabata wal mufuna bi ahdihim hay idha ahadu mujid waxa Muuse Fircoon Masr waa ka dhacday waxa la yiraahdo mawcidukum yawm zin maalinta quruxda balan waxa la yiraahdo waan yuxshara naas duxan barqa la isku iimaanay fatawalla Fircoon fajama'a kaydahu thumma waajist bacdin wuxuu isku soo dubriti waan yimid mujid markaas la waqad qaab man istaala asaasi aydu macna qofkii is sarreeyay maanta adkaada ayaa bahashiis isku dhubanaado maanta kadib asaga meeshan waraado markii qotal ciisaa markii anagoo taaska duulayno waxaan sameeynaa usbuuc markaan shaqadeena dhameysana kadib waa fariisanayna waxaan leenahay waxyaabaha noo suurtagal aan sheegina iyo wixii aan noo suurtagalin oo sheegin hadda waxa jirta oo aan aragnay marar badan waxyaabaha noo suurtagalin inaan waxba laga qaban mataana ma dhacayso because maalin walba mid la hor imaan karno inaan war waxaan noo suurtagalay caadan ka dhigan war waxaan noo suurtagali waa sawahan nagu hor istaagay waxaan waa ka qabanay inaan dhahnaan rabnaayo in aamintiin taas aan sameeynayna anaga marka waxaan u adeegsanaynaa in dad yuga kaleeto al-ahzaab al-mukhtalifa fi saaha siyasiya as-Soomaaliya inaan macnaha ayaga u soo bandhigno hawlaha noocaas oo kale ay sameeyaan suuqana saas oo kale kuwa jooga saas oo kale qoysaskana saas oo kaleeto mujida lian al-islam yani yuani kullana an numaris inaan noqono bi khuluqin hasan وإنك لعلى خلق عظيم ضبيعة ونكسن تصدق سام كسو جيدين صدق ربنا سام كسو جلي لكن دي دتك عنفي عذابي وحناقي وقليل وحان جيرين هتوحس وحلو باهي ما وجادلهم بالتي هي أحسن وحقوق كله تسألوا marka taasad marka dadku inta badan iimaan ma qaban wixii war saacad wax loo mood wadi karo saas wax loo mood wadi karo dadka waa waxyaabo dhibaato in la abuuro waa ilay mar iimaan la'aanta kalifisatas wixii walaalo lagu waayo yiri ninkii waa muxuu ahaa maaragtay oo Soomaali galbeed deganay wiil waa la oran jiray wax kale wuxuu yiri ma shaqeeyaan oo biiriba ma ba shaqeeyaan ninkii isku dayeen waa ku halaagsamay mujid la yazigu anha illa halik ninka waxaas aan marka waa sidaas halkaas in laga abaaro iyo nolol muuqata saasa marka waxa lagu gaarayaa qofku gabar u jecel yahay aydan yeesho lacag fara badan oo helo oo shaqo fiican u qabto Abdul Aziz siyaasadana saas oo kale nabadii xurriyana ku gaarnaa iyada ma santiin